halkani waa deegaanka Sanjiic oo 25 kiiloomitir qiyaas ahaan magaalada Ceergaabo kaga beegan koonfur galbeed waxaana isugu soo barakacay qoysas u badan hooyooyin iyo caruur taasoo ay abaarta ka jirta gobolka Sanaag soo caydhaysay waxaana goobtaasi ka agdhow barkad biyood oo dadkani nafta la soo agdegeen ma haystaan cunno iyo hoy toona tani waa hooyo kamid ah hooyooyinka halkan ku nool waxayna dabka saaratay kildhi maran mana jiraan wax cunno ah oo ay kildhigaasi ku karinayso waxaa sugaya 3 caruur oo ay ku maaweelinayso kildhigan maran ee dabka saaran qoysaskan dhammaantood waa isku wada mid oo waxba isma dhaamaan dan ayaa halka isugu keentay sida ay noo sheegeen maalin kasta qoysas horle ayaa halkan ku soo beera Khadija leeyahay 3 bilood in waxba laga dhadhamin waxna baqti waxna hoganayaan yari waxa la 3 bilood in aan wax ka dhadhamin oo iyaga baadi biyo naga doonayaan anuna ka sii hoosayna dabadna waxaan dawladda qaadan dirto barkada dultaga ba ilaahay ugu ogyahay idina nooma keenin wax idina nama oga in gacan la siiya gacan in gacan biyo baad bilana soo gaar deema ragga reer miyiga nagu ogyahay laakiin dawladda nagu ogayo wari midna nagu ogaa sahay reer miyiga waad garanaysaa xoolii ka baxeen marka meesha waxaanu isugu nimi in dooraba hadeer waa fadhini ilaahay iyo dadkiinaas waxaanu noolayn dad xoolale baanu ahayno waxna waa cuni jiray waxna waa iibsan jiray dabadeedna xoolii waa naga baxeen waana ka halka tugan aanu rabnaa wax walba waanu doonaynaa annagu haddii wax nala siiyo dadka halka tugan baanu hala diidmayno waxaanu nahay dad hadii laba ku ron yahay daacal basar 3 bilood aan adduunka waxa laaliyo wax adduunyaale cad iyo caano iyo wax magaalo laga geeyo midna aanu ka weynay oo ilaahay nagu ogyahay waayahay waxaanu ku soo birkidaasaanu nafta war birkida biyaha halaynagu ogaado baqtiyada sida aydin oo arki doontaan eeriyada waxaanu ka codsanaynaa biyo baad wax la cuno iyo wax la cabo hooyo awalba waan dhalaa iska jiifay anigu in jiiftay iyo in kale xoolo lahaynba xooli tage wax xoolaha waraysto waxa dhulka miyaadar baqtiga iyo siday waxaanu ka codsanaynaa wixii raashin ha noqoto xoolaha noqoto waxaan heli karo sidoo kalena qaar kamid ah qoysaska halkaasi ku soo barakacay ayaa noo kaxayay dhanka iyo guriyihii ay ka soo barakaceen waxayna tuseen baqtiyada xoolihii ay dhaqan jireen anigu waxaan lahaa ari 3 tira ah 10 loo ah hadii la weydin keliya 5 dabeera ah 7 geela iminka waxa ka nool arigii waxa ka nool 13 dabeeri waxba kama noola waa kuwa baqtigoodii aynu arkaynaa loodina way tagta wayl baa ka taagan abaartu way saameysay wadanka oo dhanba xoolihina waa aragtaan sida yihiin haday wax ka nool yihiin wixii ka noolaade waa wax gacanta afkana wax laga siiyaa biyahana afka guriga lagu keenaa cunnadana gacanta laga siiyaa annaguna markaa wixii aan cuni jiray iyaga cuni jiray waxaan cunno ma hayno biyana ma hayno baadna ma hayno iyo baqtigoodina waa ka haweeye xoolihii wayna ka dhamaadeen abaaraha baa dhacday 2 tiro ariga looduna 10 bay ahayd dabeeru 5 bay ahayd anigu geel ma haysan mana balahayn marka xoolihiisaas u dhamaadeen loodina hadeer waxaan ogahay weel yar baan ogahay waxba yaan la noolay dabadeedna waxa weeye xoolaha waa aragtaan oo jilaal baa qabsaday dadkuna waa la mid adduunyo meel joogtaba sidaasay u socotay haddaba waxa weeye waxa la bariyo waa ilaah xigana waa dawladda iyo shacabkeeda laakiin wixii naloo kari karo waa sugayna xoolina way dhamaadeen dhulka marka dunida waxa ka dhacday abaaran weligeed la arag mid kale waxaanu maqlaa cid baa la caawiyaa oo gudi abaareedii waxba jirta anagu gudida abaarana ma aragno haday biyo tahay haday raashin tahay haba yaraatay wax dawladda ka socda mar baan nus bariisa meel ceel shilaale la yiraahdo nalo ku keen iyo caagad saliid ka bacdi waxaanu leenahay dawladdu bal ciidan ay wax siiso dib ha ugu noqoto oo gudida abaaraha dabagal ha lagu sameeyo ilaa anaku ma aragno dhulkana waxaanu nahay dhulka ugu liita weeye bay kamid tahay dhulkan deegaankan ifle dagaar area si kastaba ahaatee abaarta ka jirta gobolka Sanaag ayaa mid marka ka sii dambaysa ka sii daraysa mana jiraan gurmad xoogan oo dadkaasi lala gaaray barkhad maxamuud geedi telefishinka caalamiga ee Bulsho TV xarunta magaalada gobolka Sanaag ee Ceergaabo.